bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan daawade kusoo dhawo wararkii ugu dambeeya dalka Afghanistan yaa maamulaya gacan ku haynta magaalada Kaabul wada hadallada bilowday halkee ayuu ku sugan yahay madaxweynaha dalka Afghanistan sidees ayay dowladda Turkiga u soo gali doontaa inay la wareegto ammaanka garoon diyaaradeedka magaalada Kaabul macluumaadyadas oo idil ayaan ku falanqeynaynaa barnaamijka kusoo dhawo markale Maraacad Show. wararka naga soo gaaraya dalka Afghanistan ayaa waxay sheegayaan kooxda Taliban gabi ahaanba ay xaqiijisay la wareegitaanka dhammaan xuduudaha dalka Afghanistan oo uu leeyahay dalalka kale 26 magaalo ayay qabsadeen kooxdan waxaana lagu waramayaa in dagaalo iyo duqeymo ay ku qaadeen waa bariga Saaka magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan. sidoo kale kooxda Taliban ayaa u suurta gashay inay gudaha u galaan qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan waxaana halkaas ay sheegeen in ay sugayaan oo kaliya inta shaqaalaha Mareykanka iyo kuwa ajaanibta isaga baxayaan magaalada Kaabul. isla xilligan wararka soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in dhammaan shaqaalihii ciidamada Mareykanka isaga baxeen magaalada Kaabul waxaana qaarkood hadda la sheegay in lagu daabulay diyaaradaha helicopters kuwaas oo ka dulbiibaya caasimadda gaar ahaan safaaradda dowladda Mareykanka ay ku lahayd magaalada Kaabul. macluumaadka waxay sheegayaan in kooxda Taliban ay ku dhawaaqday in aanay doonaynin inay sameeyaan wixii dhacay sanadkii 1996 oo markii magaalada ay qabsadeen magaalada dhexdeeda ay ku daldaleen Najibullahi oo ahaa ninkii Ruushka gacan siin jiray kadibna waxay shaacay ka qaadeen in gabi ahaanba aanay doonaynin waxaasi oo kale inay dhacaan ammaanka magaalada iyaga oo dusha sare kala socda ayay gabi ahaanba waxay sheegeen in loo baahan yahay saacado gudahood inay isaga baxaan magaalada Kaabul guud ahaan ciidanka ajaanibta iyo cid kasta oo doonayso inay isaga dhaqaaqdo garoon diyaaradeedka magaalada Kaabul. kooxda Taliban mas'uuliyiin ka tirsan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay shaacay ka qaadeen in marnaba ay doonayeen in bartamaha magaalada lagu dagaalamo oo ay xaqiijin doonaan ammaanka magaalada sababtoo ah waxay sheegeen in ay doonayaan in dadka badqab ahaan iyaga oo u jooga bartamaha magaalada inay la wareegaan. dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Afghanistan ayaa ku dhawaaqday saacado ka hor inay la heshiinayaan kooxda Taliban waxaa la sheegtay in ay gabi ahaanba ballan qaadayso inaysan weerari doonin magaalada Kaabul. saacadaha soo socda ayaa lagu wareejin doonaa xukun guud ahaaneed ee dalka Afghanistan. sidoo kale dowladda Ruushka ayaa sheegtay in kooxda Taliban ay ballan qaaday inaysan weerari doonin safaaradooda ku taala magaalada Kaabul sidaas daraadeedna aysan diblomaasiyiinta ay gabi ahaanba heli doonaan fursad ay halkaasi ay kaga baxaan sida lagu sheegay macluumaadka. sidoo kale Ruushka iyo Shiinaha waxay sheegeen in faraha aysan la geli doonin arrinta Afghanistan ayna sugi doonaan ciddii soo guuleysata kadibna ay la heshiin doonaan sida lagu sheegay qoraallo degdeg ah oo ka soo baxay labada dowladood. xubno ka socda kooxda Taliban ayaa gudaha u galay madaxtooyada dalkaasi gaar ahaan magaalada Kaabul waxaana ay kulan la qaateen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Afghanistan. maamulka Afghanistan ayaa waxa la sheegay Taliban inay u soo bandhigeen inuu iscasilo madaxweyne Ashraf Ghani kadibna la sameeyo ciidamo labada dhinac ah oo ka madax bannaan guud ahaan ammaanka dalka si loo xaqiijiyo xukuumad cusubna la soo dhiso. lama oga waxyaabaha ay ururka Taliban ku aqbali doonaan wada hadallada. go'aanka Taliban waxay ku sheegeen inuu yahay mid la doonayo in lagu jiheeyo mustaqbalka Afghanistan. wararka kale ee naga soo gaaraya magaalada Dooxa ayaa sheegaya in madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu xilka ku wareejin doono Ali Ahmed Cilaali oo kamid ahaa ciidankii Taliban ee la dagaalamayay midowgii Soofiyeed. Master Cilaali iyo Mawla Abdulqaadir Baradar oo ah xubnihii matalayay intii shirkani uu socday kooxda Taliban ayaa isla soo dhisi doono xukuumad ku meel gaar ah. Baradar ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa la sheegay inuu ka yimid magaalada Dooxa isla markaana uu gaaray magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan. dhinaca kale Mareykanka ayaa ciidan iyo saraakiil u soo diray madaxtooyada dalka Afghanistan si hogaamiye Ashraf Ghani si nabada gabi ahaanba dalka looga saaro. Ashraf Ghani saacadaha soo socda waxaa la hadal hayaa inuu iscasili doono sida kooxda Taliban bay ka dalbatay lamana oga halka uu aadi doono mar haddii uu ka dhaqaaqo magaalada Kaabul. afayeen u hadlay kooxda Taliban oo la hadlay telefishinka CNN ee dalka Mareykanka wuxuu yiri waxaan rumaysanahay in mujaahidiinta ay guuleysan doonaan shariicada islaamkana lagu dhaqi doono Afghanistan kaliya ma aha dhammaan Afghanistan waxaa lagu dhaqi doonaa guud ahaan wadamada dunida ayuu yiri afayeenkan. waxaase uu ballan qaaday in dhammaanba waxyeello aan la gaarsiin doonin xarumaha ganacsiga bangiyada shirkadaha shisheeye kuwa maalgelinta ka sameeya gudaha magaalada Kaabul iyo xarumaha kale ee dowladda Britain war ay soo saartay waxay ku sheegtay in baarlamaanka Ingiriiska uu isugu yeeray dhammaan xubnaha baarlamaanka toddobaadka soo aadan ay kaga wada hadli doonaan xaaladda guud ee Afghanistan. macluumaadyada kale aan helayna waxay sheegayaan in kooxda Taliban ay arinta maamulka garoon diyaaradeedkaasi ay soo hadal qaaday waxaana ay sheegtay in dib ay u dhigi doonaan oo ay ka wada xaajoon doonaan
kadib markii la dhiso xukuumad cusub oo kumeel gaara. Taliban iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa shirar yeelan doona, sidoo kalena Mareykanka ayaa dhaqaalaha iyo dhanka logistikada ku bixin doona taageerada uu siinayo ciidamada dowladda Turkiga ee la doonayo inay xaqiijiyaan ammaanka garoon diyaaradeedka magaalada Kabul haddii Taliban iyo Erdogan ay isku fahmaan. war muhiim oo soo baxay iminkana waxa uu sheegayaa in kooxda Taliban ay fasaxday dhammaan maxaabiistii ku xirneed xabsiga magaalada lagu magacaabo Bayram oo ay waaberigii saaka la wareegeen. xabsigan waxaa la tuhunsan yahay inay ku xiran yihiin maxaabiis badan oo Al-Qaacida ka tirsanaa sida wararka lagu sheegay. xogihii ugu dambeeyay aan helin ayaa waxay sheegayaan inay jiraan wadahadallo u dhaxeeya dowladda fadhigeedu yahay magaalada Kabul iyo sidoo kale xubnaha kooxda Taliban mar haddii ay hareereeyeen magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. Mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa waxaa la sheegay inay kaga wada hadli doonaan sidii si nabadgelyo ah guud ahaan awoodda iyo maamulka loogu wareejin lahaa kooxda Taliban. ciidamo badan oo ka tirsan kooxda Taliban ayaa waxay hareereeyeen dhammaanba awoodda magaalada caasimada waa berigii Saaka, waxaana ay ballan qaadeen in ay awood gebi ahaanba talada aysan kula wareegi doonin oo ay doonayaan si nabadgelyo ah in wada hadallo ay ku qaataan kuraasta ama maamulka dalkaas. kooxdan ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in dagaalyahanadooda aysan doonin qas iyo fowdo inay ka geystaan magaalada Kabul dadka ku nool iyo hareeraheedaba ilaa inta ay dhammaanayaan hanaanka wada hadallada. mas-uuliyadeenna waxay tahay inaan xaqiijino ammaanka magaalada Kabul, sidaasi waxaa yidhi afhayeen u hadlay kooxda Taliban. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghanina wuxuu beeniyay macluumaadka la xiriira inuu iskaga cararay dalkaasi oo uu gaaray dalka Pakistan, waxaana uu sheegay in uu gebi ahaanba wadankiisa ku sugnaan doono inta xaaladda ay meel uga dhici doonto. dowladda Ruushka waxay dalbatay kulan degdeg oo ay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo looga hadlayo xaaladda guud ahaaneed ee dalka Afghanistan. dhinacyada kala duwanna waxaa lagu waramayaa inay soo jeediyeen xukuumadda inay iscasisho. dowladda Britain muwaadiniinteeda waxay sheegtay inay kasoo daadgurayso gudaha dalkaasi, waxaana sidoo kale la sheegay diyaarado degdeg ah oo waaberigii maanta loo diray magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan inay dadka ay halkaasi kasoo daabuleen. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden toddobaadkii hore wuxuu yiri ma dhici doonto in ay ciidamadeena diyaarad uga soo baxaan magaalada Kabul, laakiin sidii ayaa dhacday oo diyaarad helicopters ah oo si degdeg ah loogu diray magaalada Kabul ayaa soo daadguraysay guud ahaan ciidankii halkaasi kaga sugnaa. Talibanna waxay xaqiijiyeen in aysan hadda doonaynin in awoodda gudaha magaalada Kabul ay ku galaan. taasi waxay cadeynaysaa in ciidamada Taliban ay gacanta ku hayaan qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Kabul oo ay sugayaan amarka kama dambaysta ee wada hadallada ku aadan in ay hadda yeelanayaan kooxda Taliban si loo soo dhiso dowlad ku meel gaar ah oo labada dhinaca. waxaana taasi ay ka dhigan tahay kooxda Taliban inay badashay qorshaheedii markii hore ee ahaa in awood iyo dagaal ay ku qabsato magaalada Kabul, taasi oo mar kale awoodda Taliban dhinaca kale u rogi doonta. laakiin iminka waxay helaysaa fursad ay taageero ay kaga hesho shacabka maadaama aysan ku dul dagaalamin oo aysan dagaal u ogolaanin.